السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي الصباح wanaagsan meel walba dunida ka joogtaan. saaka wuxuu waagu noogu bariyay Marraale korkiisa. halkaasi waa dhul suubaana oo barwaaqo ah oo dhereg ah. geel xiskinta ma hayo. waxa weeyaan waa dhul galgelin leh oo geel iska galgelimaysan hayo aad u qiimo badan. uu ku dhowr goosanaya insha Allah biidnillaahi kariim. waana balxinaynaa oo ceelka Marraale la yiraahdan ka balxinaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. hadda maanta laba u tahay insha Allah berri waan waraabinaynaa geel irmaanka ah ma sugaynaa oo reerkii laga keenayo haddii Ilaahay yiraahdo geel irmaan kulku noo yimaado berri haddii Ilaahay caaw soo dhalmanaya waa aroorinaynaa geel insha Allah. laba qad baan u waraabin doonaa halkan geel banfadhi iska ahaa. nirgihii baa ku xareysan waa la soo rogayaa geel irmaanka ah dib baa loo soo rogayaa. waxaa isna jiro oo kale halkan geeli rimada ahaa oo naxareynay geela xiraan u dhignay sababtuna waxa weeyaan geelan uu dhaldhalahayaa. hadduu dhaldhalahayana geelaasi ma laha banfadhi habeen barkiiba iska guur hadduu doono. marka biidnillaahi kariim halkaasaynu iskala soconaynaa. halkan geela qaarkii oo ducaash ku hayaa oo inuu dareero rabaa geel irmaanka dareeray baa arkay. geela waxaa isku jira geel dayrinaya geel gurina oo geel hadda dhalahaya guwan dhalahaya iyo kii dayrinka ahba waan isla xareynay inuu isu heshado oo maxaan ku dhahay ritiga geela cabaahe haya ee qaalmaha eryan haya waan isla jiirin yaan ugu talagalay. waa bariisanaynaa oo waxba maaragtay kalahin mayno haddii eega ooda laga qaado dhar jacbu siin fooftaankiisii buu tagay geel fooftaankiisu maba foga laakiin xoogaa gugii maaragtay kolku dhulka sidan oo kale barwaaqada iska yahay waxba aad looma maaragtay kalihiyo. marka insha Allah bal haddii Ilaahay yiraahdo geela waynu maalaynaa goordhow waana dareerinaynaa. halkan hashii luud baa fadhida geed bay dabada la gashay gunraa way is habaysay. labadan iyaga waa iska sii deynaynaa. labadani waa laba halaad oo aan aad moodo inay sugil ay yihiin inta geel dareerhayo oo laga qaadayo. labadan waan fasaxaynaa iyaga. bas way kala hadii labada ooda laga qaaday kuwii kalena waa arkeen. marka waa la soo wada baxaya hadda la iska soo wada baxo dib ma leh la soo yaaco. عشان نقدم
hashaasi waxay ku jirtaa geela la fool dhowrhayo habeen uma harin baan maqli jiray habeen iyada iyo dhowr kaloo meeshan ku xareysan hadda geela hasha ugu socodka badan waata hiraa la yidhaahdaa hira sidaad aragtaanba dhaad bay sideed iyo ku wadataa lugta socod baa ilaahay ku aafeeyey marka kaliishii oo kale iyo mararka qaarkood kolkii loo taag waayo seetada la iskaga qabtaa waa kan ninkii odayga ahaa saa unbu isagu noo qasahayaa laga lisi kari maayo geela haddaynan xaris kaga qabanno mooye hal qura lisiba kari mayno marka inuu nala heshiiye waa diiday ninkani oo isna geelisa dhinac ka abaahay annaguna aanu iska maalmaalno markaasoo aburkaasu tuurhayaa waxaa kaadidu saas ugu saydhayaa ee dhibida ah marka hoggaan baan iskaga qabanaynaa mardho hoggaan si kax kuma gartee
maanta geeli waxaan ka waraaminaa ceelka Marraale saaxiibayaal. ceelka Marraale ninkaan aqoonin waa ceel dhana ah oo xagga geela aad ugu fiican. wuxuu ku yaalaa dalka Itoobiya, gaar ahaan wuxuu ku yaalaa gobolka Qorraxay, khaasatan degmada Kudumbuur. sida tayin oo kale ayuu wuxuu ka xigaa dhinaca koonfurta muddo qiyaas ahaan 25 kiiloomitir ah. balxis baa la yiraahdaa maanta oo kale geela waa balxinaynaa. halkan ceel korkiisa ayuu geelu galaa. halkaasaa loo daynayaa in muddo ah oo ilaa adigu waa 20 beri ah. ladaabna waa loo waraabinayaa biidnillaahi kariim, oo ladaab baa loo waraabin doonaa. saa aragtaan ceelka annaga unbaa joogna, cidna lama joogto. waa xilli aan siri qiyaas ahaan saacadda ma dhowrin, laakiin waa 9kii galabnimo. hadda waa 9kii galabnimo weeyaan. maasha allah geelna aad buu cabbay, oo kaasoo waa cabbay. haddii ilaahay yidhaahdana 2 beri kadib, haddii ilaahay yidhaahdana 2 beri ama 3 beri kabacdi waa lagu soo celin doonaa insha allah. waa tahashi baari ahayd oo cayshay. geelu aad buu qurux badan yahay, geelu aad buu qurux badan yahay. waana wada rimay oo geelu hadda waa wada riman yahay, hal mooyaane intiisa badnayd rtug baa rimiyey. ceelkan waxaa la yidhaahdaa qaalmo koriye. waxaa igu maqaalo ah
qaalmo koriya in loogu bixiyey qaalmaha yaryar ee geela macnaha afar jirka meelahaasa oo aad iyo aad ugu roon yahay. waxaa weeyaan rtigii baa maaragtay qaalimada iyo nirgaha yaryar iyo waxaasuu eryahayaa. marka ceelkan qaalmo koriya waxa loogu bixiyey baa la yidhi qaalintu marka ay ku soo aroorto geedka ay gaari weydo, iyadoo aroora geedka ay gaari weydo, marka ay dib ugu soo fusho waddadii ee ceelka ka soo cabto waxaa la yidhi baarka ka laacdaa bali baarka. marka halkan gaarigii ducaysana ahaa baa taagan, soolarkii iyo waxbaa gadaal noo saaraa oo halkan baan intuu geelo cabaya taleefanada ku dabaysanaynay. ceelka de annaga unbaa joogno, waa iska cidla. marka maadaama annagun joogno ceelka waxaa weeye waa iska baashaalaynay, taleefanada iska dabaysanaynay, geelaan iska waraabsanaynay, hawlo badan baan isku dhex wadnay. marka insha allah wada socod wanaagsan. geelu intaa uu cabahayo bal halkaasaynu ka wada soconaynaa haddii ilaahay yidhaahdo. كده بيلعب يا سوري.
لا آه. هسا وشر أفخر ها ها لكن سوى لو قلت كره شيء كان أصلا لو قلت كره
marka dambe wuu legday tasal ku gala marka dambe dadku daraash ka sameeyay kiina xiranha hal baadi abu helooday hashii uu abaahan yahay hal baadi ab ahayd geelina wakaa fulay sii socda hashii baan ka kicinay wakaa geel sii daba ordahay had ninkan halkan horteeda sii socda waa cabdikhadar axmed daahir xasan biixi weeye geelu nala waraabiyey maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal maanta hal ayaa naga fool hallowday annagoo geela aruurinay oo usii calayoonay oo magaalada joogna ayuu wiilkii na soo waco oo yidhi hashi ma hayo dabadeed waa soo birmanay hashi waa halla ilaahay waa nagu guuleeyey iyadoo oon weli mandheeranin baanu ka tagnay haddana geelii baanu aruurinay oon soo waraabinay haddana waa ku soo noqday aad qaadid baan leeyahay xerdii aad geysa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo wataa mandheerteedii weli maana iyadii arag ilmihii way tircisatay marka raadkeedaynu qaadaynay hadda ma foga biidnillaahi kariim raadkeedii waa kanoo xaggana u tircisatay nirigta maanta dhalatay intaas socotay ka warran nirigtaas waa nirig maanta un dhalatay haddana waa kaasoo waa raad hayaa nirig maasha allah weeye saaxiibayaal waata maasha allah haddii ilaahay yidhaahdo waa qaadayaa nirigtan waa qaadayaa tunkaan saarahayaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo bal sidaan u qaado iyo halkaan la maro iyo howlahaas idina bal markhaati ka noqdo insha allah nirigtan waa nirig nool way soo daba socotaa anigii bay soo daba socotaa marka inaan qaado umaba baahnaan u malayn urri maasha allah nirigta waa qaadaynaa saaxiibayaal geela sida loo qaado ani baro haddii ilaah yidhahdo haddaynu dhufanaynaa nirigta weli isla maana qabsanin intaasoo nirigta waa cabaadaysaa aayar baan nirigtii dusha ku wataa saaxiibayaal waa iskala laafiyoonaya oo ujeedaan hashiina waa is aaminay haatay daba ordaysa
وهل وايل وهل وين وين صاحب يا الجيل وح علص هالشواطة حردي هالكن دويا إن شاء الله بيح ونسير قوانا هالشينا واتنا هدي الله هذا حردي نكتور نمر إن شاء الله عندك في عنا صور راعس أري 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 حرد الجيل خور كاني مال مرير لبس كا ما ينعنس إن شاء الله كم حرير وقد إن حد إلهي هذا صلاة المغرب كم كان تكنه إن شاء الله حرير وهالكنا حبين كمان سيحنا أكتر هذا نقول إن شاء الله